الله ونحرسته مرحوم علي إيمان شرماكي waxa uu ku dhashay tuulada Geelajir oo ka tirsan gobolka Galgaduud sanadku markuu ahaa 1964 waxaana uu ku soo barbaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe iyo inta badan dugsigii sare marxuum Cali Iimaan Sharmaake markii dambe waxa uu soo wareegay magaalada Muqdisho oo markii dambena uu ku biiray kuliyadii tababarka ciidanka ee Jaalasiyaad markuu soo dhamaystayna waxa uu si toos ah ugu biiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaanna uu ka gaaray darajada kabtan الله نحرسته مرحوم علي إيمان شرماكي waxa uu tababar ciidan loogu diray wadanka Mareykanka sanadkii 1988 kadibna waxa uu noloshiisii iyo waxbarashadiisiiba ka sii watay wadamada Mareykanka iyo Kanada muddadaasi marxuum Cali Iimaan Sharmaake uu ku noolaa dalalkaasi waxa uu si aada ula socon jiray xaaladda guud ee ay marayso dalka Soomaaliya مرحوم علي إيمان شرماكي waxa uu waqti badan oo xilligiisa kamid ah ku bixin jiray sidii dalku u dagi lahaa waxana uu dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya marxuumku waxa uu xilligii maamulkii loo yaqaanay Salbalaad ee uu madaxda ka ahaa Maxamed Faarax Aydiid uu ka noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu marxuumku xilligaasi ka badbaaday isku day dil oo lagu doonayay inkastoo dhaawac culus uu ka soo gaadhay waxaan ka wada shaqeyn jirnay dawladda Salbalaad wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dawladda waxay isu dhiibaysay hal abuurka Cali iyo gobolada iyo degmooyinka oo dhisay oo fadhiya oo shaqeynaya Soomaaliya ayaa ninka anba qaadahay gobolada Soomaaliya oo asaga dhisay banaadir asaga dhisay shabeellada asaga dhisay Hiiraan asaga dhisay Galgaduud asaga dhisay ilaa inta soo Salbalaaro ay ka talinaysay wasiirka arrimaha gudaha waa asaga dhisay dawladda timid iyo cidii ka dambeysay wixii dhisnaa oo bayska ah oo Cali uu dhisay ay ka anba qaadahayeen marxuumku kadib waxa uu dib ugu laabtay dalkaasi Kanada halkaasi oo iyaga oo saddex dhalinyaro ah waa Cali Iimaan Sharmaake Axmed Cabdisalaam Xaaji iyo Maxamuud Cilmi Dulcad ay ku soo bandhigeen in marka ugu horeysa dalka Soomaaliya laga sameeyo warbaahin madax bannaan oo ka shaqeysan nabadda iyo dib u dhiska dalka waxayna sanadku markuu ahaa 1999 ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho idaacadda iyo telefishinka Horn Afrique xilligaasi oo dalka ay ka jireen dhibaatooyin culus iyo ammaan darro oo ay sababtay dagaaladii sokeeye waxaana adkaysi ay ka muujiyeen dhowr jeer oo la damcay in gabi ahaanba la xiro idaacadda Horn Afrique runtii marna xisaabteeda kuma jirin in hawsha ah in saxaafad xor ah oo qaasatan ah midda warbaahinta radio iyo TV ay tahay wax sahlan sababta ku darsanayna markii aan furaynay Horn Afrique in ay tahay hawl aad u dhib badan laakiin waxaan ogeyn inay jirto baahi oo dadweynuhu u qabo inay helaan radio xor ah TV xor ah oo ka jawaaba baahidooda baahidaas in laga jawaabo waxay markiiba abuuraysaa qatar ayadoo oo saxaafadu guud ahaanba mar walba ay tahay meherad aad u dhib badan marka ay ka shaqeynayso dhul colaado ka socdaan oo dadka colaadahaasi wadaahi ay rabaan qolo walba in dhinaceeda kaliya akhbaarta la helo waxa abuurmaya dhibaato ku imaan karta laakiin dhinaca kale waxa barbar yaalla baahida ay shacabku u qabaan inay xaqiiqda ogaadaan ilaa ay xaqiiqda ku ogaadaanna ma gaari karaan go'aamo sax ah oo ku salaysan xaqiiqda ayadoo baahida la eegay ayaan waxaan wada go'aansanay inaanu qatarta qaadano qofka wariyaha meerada ka dhiganaya qofka maalgelinaya qofka maamulaya intuba inay qaataan qatar oo qatarta lagu shaqeeyo furitaankii idaacadda Horn Afrique oo markii dambe sii ballaaratay waxa ay noqotay mid wax weyn ka bedesha fikirka maskaxeed ee bulshada ee ka qayb qaadanaysay arinta murugsan ee Soomaaliya xalka gaaristeeda marxuum Cali Iimaan Sharmaake oo shirkadda warbaahinta Horn Afrique u qaabilsanaa dhinaca maamulka waxa uu waqtigiisa inta badan gelin jiray sidii ay u noqon lahayd mid soo saarta suxufiyiin tayo lehna aqoon ay bulshada ugu adeegaan waxay ahaayeen nimanka bulshadan u soo horay waqti aad u dheer inay ka furaan idaacad
idaacaddaas oo ah Horn Afrique oo isu beddeshay midda dadka iyo dalkaba wax weyn u qabatay. shirkadda warbaahinta Horn Afrique oo ka kooban idaacadaha Horn Afrique, Capital Voice, telefishinka Horn Afrique iyo xarunta cilmi baarista iyo tababarada waxay udub dhaxaad u noqotay isku xirka bulshada rayidka ah iyo u adeegidda dadka aan codkoodu meelaha fog gaaraynin. marxuum Cali Iimaan Sharmaake si gaar ah waxaa loogu xusuustaa in uu xubin firfircoon uu ka ahaa bulshada rayidka ah oo ay warbaahintuna ka mid tahay, isagoo mar kasta ka dhiiban jiray kulamadooda sida ay u noqon lahaayeen kuwo shaqeeya oo taabagal ah. dadka Soomaaliyeed maxaa la gaarsiin karaa inay isku soo dhawaadaan nabadi ka dhex dhacdo annagu runtii way u baahan tahay inaan jawaabtayadu ay ka muuqato ficil jawaabtuna noqoto miyigu wax waa ka tari karaa nabadda waana qabaa anigu inuu nabadda wax ka tari karo runtii wax weyn buu ka tari karaa nabadda يعني هذا نجا مجالات تندوال حنبا كنعي ميديو وحو أها ماشي حكت اللي هرو ضدكو وحو ماشي كساري واحد بربقاندا دا هورن إنه يماركتي أي سماشا إيمان يو ماشي كساري بركي مالو والبا هولي وكجرا أخبار بوشيريا واحد أمكي كنعي waxay u diidaysay dhinacyadoo dhan inuu qofii uu wax barabagaanda inta abuuro uu suuqa keeno barabagaandada suuqa la keenana dhibaato badan colaadda way sii hurinaysaa waxa ugu sahlan ee miidiyu sameynaya isagoon nabadaba aad dhisayn hawshiisa markuu qabsanayo inuu maaragtay runtii uu qaybtaas maaragtay mas'uuliyadiisa ku aadan fulinta uu fulinayo ay dhinaca kale ummadii waxtar ugu noqoto. marxuum Cali Iimaan Sharmaarke oo waqtigiisa intiisa badan ku qaatay gudaha dalka waxa uu dadka Soomaalida ee dibadda ku dhaqan ku nool ama ku nool ku dhiirigelin jiray in ay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay ka sameeyaan mashaariic si dadku ay uga faa'iideystaan. shirkadda warbaahinta Horn Afrique oo fikir ahaan iyo maamul ahaan uu wax ku lahaa Cali Iimaan Sharmaarke waxaa maanta qaybaheeda kala duwan mushaar joogto ah ka qaata shaqaale kor dhaafiya 100 qofood waxaana ka aflaxay tababaradeeda suxufiyiin kala duwan oo ku nool gudaha waddanka Soomaaliya. waxa ay waran iyo barnaamijyo joogto ah siisaa bulshada waxaa ururada caalamiga iyo kuwa gudaha ay la fulisaa mashaariicda wacyigelinta waxa ay wada shaqayn la leedahay wakaaladaha wararka caalamiga sida BBC-da iyo idaacadda VOA wakaaladda wararka Reuters. waxa ay inta ay in ka badan ku mutaysatay abaalmarin caalami ah iyo amaanta daawadayaasheeda iyo dhageystayaasheeda. dadka aadka u yaqaan Cali Iimaan waxa ay ka warameen waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu xusuustay. anu Cali Iimaan aqoon weynaan sulahayn muddo ayaan hawl ku jirnay oo shaqaynaynay nin dhalinyaro oo firfircoon oo bulshada Soomaaliyeed inuu u shaqeeyo si aad diid u hayay hawl weyn ka qabtay intuu joogay waaye inta isku ma aanan baran kaliya nin beesha oo ka dhashay gudiyadiisii madaxdiisii kamid ahayo wada shaqeynana waa ahay ninaan ilaa Canada markuu waxbarashadiisii joogay Mareykan aan wada joogno wuu ahay xawar markaas uu nimidna hawsha oo hayo laftirkeeda dadka ku dhow ayaan kamid ahay. علي من صومالي وطني نيت سن للي النبيسة أمبوغي من لا أوجرو هذا مسيح ورسول ولي بكفكر بلير وأمضى الصومالية من نمدي ذا يسكو حرانتي ذا النمط هذه والجدا صومالي ضوي تغانا ورودو كجرا ويكور قبان يعني قف علي لحريرتي أو أن تعبانين وطن نبيس يسوع النبيس مجرته aqoontan Cali lahaa waxaan ku aqaanay inuu yahay nin kartile waxaan ku aqaanay nin qowle waxaan ku aqaanay nin hawlfulinta ku fiican
waxaan kaloo ka aqaanay nin aragti fog leh ayaan u arkayay. waxaan kaloo aqoontan leh waxaa waaye nin wuxuu inta badan jeclaa dhibaatada Soomaaliya ku habsatay in xal loo helo, dadaalkeedana ku jiray waqti badan iyo waqti badan la geliyay. cali wuxuu ahaa nin inta badan bulshada ku dhex jira, ma ahayn nin bulshada iska saara. wuxuu ahaa nin bulshada qaybaheeda kala duwan gacan saar la leh oo cid kastaba la shaqeeyo oo gacan saar la leh ayuu ahaa. marka nin wuxuu ahaa maantay ma ahayn inkastoo waqtigiisii dhammaaday, laakiin marxaladda Soomaaliya waxaan wuxuu ka mid ah ragga la isleeyahay halleena waa doorka inay ka bixiyaan jiirta adag ee maanta Soomaaliya. cali iimaan sharma arke waxaa ifka uu kaga tegay 2 caruura iyo 2 xaas iyo waliba mid uurka lagu sido. allaha u naxariistay cali iimaan sharma arke waxa uu ku geeriyooday 11 bishii Agoosto qarax miino oo loo dhigay gaarigiisii uu saarnaa kadib markii uu ka soo laabtay aaskii marxuum Mahad Axmed Cilmi oo isla maalintaasi toogasho loogu dilay magaalada tan Muqdisho isagoo ku soo jeeda xarunta shirkadda warbaahinta Hoon Afrika. haddaba Mahad Axmed Cilmi kumuu ahaa? allaha u naxariistay marxuum Mahad Axmed Cilmi waxa uu sanadkii 1974 uu ku dhashay deegaanka kuliyadii beeraha ee Afgooye, halkaas oo waxbarashadiisii dugsiga Quraanka uu ku dhamaystay. kadibna waxa uu sanadkii 1981 ilaa iyo 88 uu qaatay waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dhexe. markii dawladdii militariga ahayd ee burburtayna waxa Mahad allaha u naxariistay uu waxbarashadiisii ka sii watay dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay oo uu ka bartay luqadda afka Ingiriisiga oo markii dambana uu macalinba ka noqday. marxuum Mahad Axmed Cilmi waxa uu sanadkii 1997 uu u ambabaxay waddanka Koonfur Afrika, halkaas oo uu ka galay kulliyad barashada saxaafadda ah. kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay sanadkii 2000 idaacadda Koonfur Afrika ee la yiraahdo SACP laanteeda afka Soomaaliga. allaha u naxariistay Mahad Axmed Cilmi waxa intii uu ku sugnaa dalka Koonfur Afrika uu ahaa wariyihii gaarka ahaa ee u soo warrami jiray idaacadda iyo telefishinka Hoon Afrika, isagoo inta badanna ka soo warrami jiray dhibaatooyinka dadka Soomaalida ah ee ku nool Koonfur Afrika loo geysan jiray. allaha u naxariistay Mahad Axmed Cilmi markii dalka uu dib ugu soo laabtay waxa uu la kowsaday aasaaskii idaacadda Capital Voice ee magaalada tan Muqdisho oo uu ka noqday barnaamij soo saare iyo madaxa idaacadda. waxaana uu toddobaad waliba marka laga reebo maalinta Jimcaha uu soo saari jiray barnaamijka Muqdisho maanta oo muddo gaaban gudahood magaalada Muqdisho caan kaga noqday, iyo xubinta hoodi oo maalin waliba xaafadaha ay kaga warrami jireen xaaladaha nabadgelyo oo dadku ay kaga warramayaan. waxa ay saaka ku soo kaceen maadaama isku socodka iyo xaaladda magaalada Muqdisho ay tahay khatar xilliyada habeenkii. goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkeena xiisaha badnaa ee Muqdisho iyo maanta oo aad inta badan kala socotaan soo ogaanshaha xaaladaha nololeed xaafadaha magaalada Muqdisho. waa xubinteena hoodi aan xaafadaha ku soo salaaman iyo doodeena maanta xiisa gaar leh. marxuum Mahad Axmed Cilmi waxaa lagu yaqiinay howlkarnimo, waxaana barnaamijkiisa lagu dhagaysan jiray warar iyo barnaamijyo si gaar ah looga hadlayo ama looga warramayo dhibaatooyinka dadka liita, kuwa barakacay iyo kuwa aan codkoodu meesha fog u gaari karin, kuwaasoo gargaar ugu dambeyntii ka helay. ilaahay naxariis dan al asiyo dadka noo tabaabasheehay wax ka sanasiihay war naga qaaday dhibaatada nooga sheekeynay yaa ala dili maalintaas sidoo mu ooyna waa rafaadna maalintaas dibardaran iyo barjaajo aan noqon walaahi cunta taara macaan wax ka sano ima jiraan war bay naga duubi jiraan dhibaatada ay arki jiraan. Mahad Axmed Cilmi ka soo qabto bulshada ku nool magaalada Muqdisho dadaan soo bixi jirin ayagoon mahad dhageysan oon ogaanin magaalada 16 degmo waxa ka jira. markay mahad dhageystaan kadib ayay soo bixi jireen ama ay dhageystaan bahda Afrika. Mahad Axmed Cilmi wuxuu ahaa wariyaha ummadda, wuxuu sheegay waxa cadeynaysa mahad wiil yar oo ahaa oo aad u da'yar hase aatadii maskaxdiisa iyo sheegiisa
iyo ummadda soo ugu naxariisanaya iyo dadka masaakiinta oo danyarta ah oo guryaha jooga soo ugu naxariisanayaan ama ay u faafinayaan ayaa ummadda dhammu raalli uga aheeday allah u naxariistee mahad axmed cilmi ka sokow barnaamijkiisii iyo kormeerkiisa idaacadda waxa uu safaro shaqo uu ugu ambabaxay xilligii abaaraha iyo biyola'aantu ay ka jireen qaar ka mida gobollada koonfureed isagoo la fadhiistay waxna ka weydiiyey baahidooda dadkii degganaa deegaanadii abaaruhu ay ka jireen saad u jeedaan carruur badan baa halkan joogta waad dareemi kartaan xitaa markaa laga hadlayo muuqaalkooda deegaankan isaga ahi xaaladaha ka jira waa la fahmi karaa waa dhibaatooyin markaa muuqanaya xagga abaarta oo dadka deegaankan isaga ahi ku nool ay markaasi ku yeelatay sidaad arkaysaan sawirrada markaasi aynu qabanayno ee ku saabsan bal abaarta halkan siday u saamaysay waxay muujinayaan xitaa saamaynta abaarta la dareemayo xitaa xaruurkan halkan yaalla waxaa ku muuqanaysa xitaa sidii la rabay inuusan u bixin oo markaasi roobkii la rabay inuu markaasi ku baxo uusan soo gaarin biila'aan ka jirta kadib markii warihii biyaha ay ku jiri jireen ay gursadeen sida wartan iminka aan ku suganahay waxaa lagu magacaabaa daanjarre mahad allaha u naxariistee waxa uu waraysiyo gaar ah uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsanaa dalka Soomaaliya iyo kuwo kale oo caalami ah waxaana sanad ka hor xafiiskiisa uu kula kulmay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele toddobaad ka hor dilkii marxuum Mahad Axmed Cilmi waxa idaacadda Capital Voice ee u dabaaldegtay sanad guuradii afraad ee 1 Agoosto 2007 waxaana hubaal ah in maamulka iyo shaqaalaha shirkadda warbaahinta Horn Afrique inay ku xasuusan doonaan doorkii uu shaqada iyo saxaafadaba ku lahaa Allah u naxariistay geeridii Mahad Axmed Cilmi waxa ka tiiraanyooday dad badan oo maqal mooyee aan muuqaalkiisa aqoonin waxayna suxufiyiinta iyo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdishoba ay ka hadleen sida ay u arkaan dilkii foosha xumaa ee loo geystay marxuum Mahad Axmed Cilmi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun magacaygu waxa la yiraahdaa Cabduqaadir Yuusuf Sheekh kuma dheer Cabduqaadir Titi aad iyo aad ayaan ugu xumahay aniga ku hadlaa magaca shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan aniga u tacsiyana ehelka uu ku geeriyooday maanta waa maalin madow waayo waxa geeriyooday wariye Mahad Axmed Cilmi ummad Soomaaliyeed ka geeriyooday ma dhihi karo gaar ahaan cidiisa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan saxafiyiinta haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed aad ayaan ugu xumahay maan dareenkay aad ayaan u kacsan yahay wariye Mahad Axmed Cilmi waxaan ku tilmaam ma aqaan waxaan ilaahay ugu rajeynayaa jannada firdawsi waa Ismaaciil Cali Cabdi Taxte waxaan kamid ahaa suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala caasimadda Soomaaliya Muqdisho runtii aad aan ugu xumahay waxa dhacay oo aad looga xumaado haddii aan nahay suxufiyiintii magaalada iyo kuwa Soomaaliya dhanba aad ayaan uga xumahay dilkii loo geystay wariye Mahad Axmed Cilmi saameyn badan bay nagu yeelatay runtii waxaad moodaa maanta in anaga in aan isku soo xoor ka nahay arinta dhacday nin hadii professionkiisii oo howshiisa uu ku jiro loo dilay saameyn badan bay nagu yeelanaysaa oo anaga runtii waxaan ku shaqeynaa magaalo xaaladeeda aad u adag tahay marka laba goorba si kastoo loo dilay runtii nin howshiisa ku jiray oo anagu aan saaxiibo ahayn oo aad u jecleen bay ahayd marka waan ka xunnahay dareenkeena runtii aad u kacsan yahay mana fileen in ay marka tani ay dhici karto marka waxaan sheegnay ma naqaanba anigoo ah Yaasmiin Miyo Maxamed isla markaana aabada saxaafadda kamid ah aad ayaan uga xumahay dilka loo geystay walaalkeena isla markaana in asxaabta saxaafadda inugu weyn Mahad Axmed Cilmi dilkaasna waxaan dhiili karaa waa mid aad noo wada xanuujiyay haddii aynu nahay saxaafadda guud ahaan dalka ka shaqaynayso haddii aan dilkan loo geystay walaalkeena ee aan waxba laga dhihin waxaan filayaa guud ahaan annaguna inay noo wada imaan doonto waa mid aad looga xumaado waxaan yiraahdaa Dr. Umar Maxamed Cabdulla Umar Dhegey waxaan la wadaagaa saaxiibaday yani tacsiya ayaan u diraynaa dhammaan ehelada qaraabada bahda warbaahinta bulshada reerka Soomaaliyeed in sabar iyo imaan Ilaahay uu ka siiyo geeridu ku timid Cali Imaan Sharmaarke iyo Mahad Axmed Cilmi labaduba waxay ahaayeen dad hawl u hayo bulshada tan kaalintii uga aadanaayeen way ka soo baxeen waxa hawl u taala inta hartay oo nool
oo la rabaa inay si aanba qaadaan hawsha ay raggaas hayeen waxaana qof kasta oo dadka ka mid ah way dhimanaysaa dadka oo dhan waa dhimanayaan laakiin hawshii la bilaabay unbaa waxaa rabta in la sii joogteeyo la wado waxaan leeyahay yani annaga haddaan nahay ama meediya aan nahay inaan isku baraarujinno inaan mar kasta wakhti gelinno iyo muxuu ahaa dhaqaale wixii aan heli karno caqli aan gelinno in bulshadaani ay gaarto horumar nabad lagu dhowray xuquuqda aadamiga kullu nafsin daa'iqatu lmowt ugu horrayntii waxaan tacsi u diraynaa qoyskii iyo eheladii iyo bahda warbaahinta iyo dhammaan bulshada rayidka iyo ummadda Soomaaliyeed labadii halyaay ka baxay aan dhihi karno waxay ahaayeen lafdhabar u ahaayeen qayb muhiimana ay ka ahaayeen nabadda iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed cali iimaan sharma arke iyo mahad axmed cilmi kadib waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhacdadaas xanuunka badan ku timiday saaxiibadayna iyadoo qof kastaba uu dhimanayo waqtina uu leeyahay aanna la dhaafayn waqtigooda ayaa haddana waxay nagu reebtay dhacdo aad iyo aad u xanuun badan laakiin waxaan ku dardaarmaynaa in hawshii ay wadeen halkii laga sii wado oo laga sii ambaqaado oo aysan jirin waddo kale oon ahayn in xaqiiqda la abaaro in nabadda laga shaqeeyo in dib u heshiisiinta laga shaqeeyo in ummadda la isu soo jiijiido in ummadda xaqiiqda loo sheego in dhabta laga warramo in xaaladda Soomaaliya loo bedelo xaalad ka fiican midda hadda ay ku jirto allaha u naxariistay cali iimaan sharma arke iyo mahad axmed cilmi waxaa xusuusan doona taariikhda suxufiyiinta Soomaalida intii taqiina iyo intii aan aqoonin aan uga barino in eebe uu janno ka waraabiyo ehelkii iyo asxaabtii ay ka baxeen oo samiri iimaan ka siiyo liibaan tadiinkiyo xaqa inay u laabtaan laa xawla walaa quwa wiilo ugu dirayno sama inay ku laabtaan laa xawla walaa quwa kii laga laquusaa halkii lagu halaagay allow labada daaro iska lagu waarimaye aakhiro lamaaniyo liibaan barawsi allow labada daarood iska lagu waarimaye aakhiro lamaaniyo liibaan barawsi waxiinkii fircooniyo qoonkii waabkacay laa xawla walaa quwa muuqta loo diray kolkii labanta diintiyo laa xawla walaa quwa xaqa laga la daalaa